maanta gegida magaalada Hargeysa waxaa lagu xiray wariye Cabdimaalik Coldoon oo kamid ah suxufiyiinta sheekooyinkooda xooga ku saara arrimaha ku saabsan dhanka bini'aadanimada iyo in dadka loo gargaaro. waxaa lagu xiray garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. sababaha loo xiray lama sheegin, balse waxaa la tuhunsan yahay sababahaasi inay qayb ka tahay imaansho u yimid magaalada Muqdisho iyo warar sheegaya inuu ku lug lahaa arrinta ku saabsan ololaha dhanka loogu jiray madaxtinimada dalka. haddaba hooyadii Cabdimaalik Coldoon hooyadii oo lagu magacaabo Faadmo Rooble ayaan gabadha la hadlay, waan weydiiyey sida ay u soo gaartay sheekada ku saabsan wiilkeeda in ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku xireen airport Hargeysa. maanta nimanaya sidaa markii uu yimi ayaa waxaa la soo hadlay inay walaalyihiin war markii ay isugu dhinteeda wuxuu walaal airportkan inta diyaaradda naga soo fadhiisatay daqiiqada kadib dhaleensi waa la qabta. sababta loo qabtay ma ka warhaysaa? wallahi sababtaa loo qabtay weli ma hubo, laakiin inanka asida Muqdisho wuu tegi jiray waana saweyn jiray nin dadka dau kaalmeeyana u ah Soomaalida ka dhexeeya oo caalamka oo dhan waxay dadka islaamka Soomaalida isugu mid bay ahaayeen. halkii dowlada wuu tegi jiray wax dhiba oo maxay samayn jireen ma jirto. ninkana waxay ninka dhaqtarka ninka maxay halkaas jooga ninka dhaqtarka yaalla ninkii ahaa lacagta sentran jiray dhaqtarka joogay ninkana lacag buu siday u dee ma garanaysaa. waxaan ku weydiiyey, waxaa lagu eedeynayaa sida aan maqalnay in uu Muqdisho tegay uu ka qayb galay olole siyaasadeed. arrintaasi ma la socotay adigu? maya siyaasadii anigu waxaa sababta leeyihiin warna kama hayo. siyaasadda weligii muu gelin, dowladda sababta ma leha. maxaa yeelay ninkaa maanta keeranayay ee farmaajo dee ninkaa uu taageerayo waa taageeray caalamka waa laga taageerayay. anigu intaa lagu qabsi garan maayo. maamulka Somaliland iyo kan garoonka ma la hadashay oo si aad xog u weydiiso? xog lagu sheegi maayo. idan kala hadlay ma jirto. ninba intayla soo hadlay wuxuu inanka adlandarta waa laysoo siiyey inankaagii sida ay bidaa kaxaysanaysa iyay qabteen oo saas la socday yidhaahda. wallaahi horta ilaa iyo balmaqrika eegaya wadatatay haystaan iyo waxay ku haystaan inaad hubsato weeyaan in la soo daayo iyo inay dee si kale ukaxaystaan. horta waa mugsanaya ilaa iminka mar dhaweed baa la qabtay si ay dib warasaysa lagu yidhi waxay kadib ay soo saaraan mar la kan qaadaya. wiilkaagu dabcan wuxuu caan ka yahay baraha bulshada iyo warbaahinta, sida aad sheegtana wuxuu ku jiraa olole dadka loogu kaalmeeyo, sidoo kalena dee aragtidiisu ay caddahay marka la eego sida uu wax u tabiyo. marka aragtidiisa adigu sideed u arkaysay sanadihii dambe iyo sida uu bulshada dhexdeeda ku ahaa, sideed u fahmaysay? waxaan la arkayay dee nin dhalinyaro ah oo duniga usoo maxaysay inta usoo kala qaaday oo wax faraya oo dadka silicsan kaalmeynaya oo Soomaalida maxay la garab taagan oo aan isagu maxay wax siyaasada iyo wax dowladda midna ku jirin oo isagu maxay dalihiisa lagu gudbiyay dadka kaalmeynta islaamka alaaru haystaan iyo dadka buka in garab taagan baan arkayay. anigana waan ku ducaynayay raalligaan taariikhda dadka soo qabto ummadana way ku raaxaysanayeen way u ducaynaysay. markaas sababta iminka dee loo qabtay waaba yaabanayba. khatar misdhehaysa wiilkaaga waa la kulmi karaa markaad eegto sida u shaqaynayay iyo imaashihiisa Muqdisho iyo sidaas ma dareemaysa in khatar uu kala kulmi doono aakhirka? anigu isma lahayn dhibaato la kulmaya sababtoo ah qofka haddaan siyaasad ku jirin, qofka haddaan qof maxay xumaanta shaqaynaya ahayn, qofka haddaan dowlad midna wax ka sheegin. anigu isma lahayn nin Soomaaliyeed oo dhalinyaro hore fikradda leh oo dadka u shaqaynaya oo dadka fiirsanay oo dadka maxay haysay bukoy oo dadka abaarta haysay ayaa la qabsanaya. anigu aan dadka kaaliyadayda ilaahay way kala kulmaysaa halkaan dhibaatada. waxaan maqlay gaarta waa caadi waa gaarta ma haye goorma la xiray marka? wallahi dee markii diyaaradda la xiray dadka ka soo waa gartay. weli maad la hadashay marka xukuumadda? Cabdimaalik maxay baa loo xiray? waa gartay. dadka qaar waxay hadal hayaan in madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ay kulmeen taageero u muujiyay. arrinkaas wax loo xiri karo ma tahay?
إذا ما قررت أنا حاجة جديدة وصلت كم دنيا وكيف لا سبيل هي وشكرا كاسو ما يقولون هاي بلا واحد يقول الشهادة على هذا ولا هذا كما تبي حلم قرر الإسلام si wanaagsan حوالي الرأي ديسو بيبتدى محيط حرمه يسكو ديسو aragtidaada marka in ra'yigiisaas uu dhiibto madaxweynaha Soomaaliya taageer sida u aragta adiga كاسو ما يقول كذا كاسو ما يقول كذا xaaladiisa bal ma ka war doontay oo caawa sidii xaalka Cabdimaalik حالك عبد الملك عمر هي ما تربط الواحد كما صارين أروسم ولا ولا إن شاء الله عبدنا يصدقه وصل أروسم بعدارة يا يجب أن يكون شيء بدوره يكون شيء بدوره عليه ma jiray tuhun ah haddii Hargeysa uu ku laabtay in la xiri doono horey ma u qabay tuhunkaas إن مثلا ولا حين الدعاء ما بحث الواقع كي نفر المقدسين كي نفر يفرق إذا ما حين السنين waa gartay إنك أنت أسمعت نقطة ما يدر مريض وما الحوارات التاجرين haye xukuumadda Soomaaliland maxay baad leedahay ugu dambeyn قف الجرائي دي بينين كراء ودول وتاجر كراء جرائي وحر إذا نبدأ قف مقرص هنا قف مكتوب كرته بس والله جرم ده لكن يرسل